Assalaamu calaykum soo dhawaada ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalka waxaa kaga hadli doonaa maxaa xoojiyay ilmaha difaaca jirkooda maxaa xoojin karo waxaan ka hadlaynaa waa ilmaha halka sano ka weyn maahan ilmaha halka sano ka yar marka waxyaalaha difaaca jirkooda xoojin lahaa ayaan ka hadlaynaa marka soo dhawaada haddii marka kugu horeeyay soo boqotay ay tahay subscribe noo saar gambalelkana furo hadda hore noo joogtani like noo saar asxaabtaada noo sii share garay waxa ugu horeeya horta cunuga waxaan la haduu sanadka weyn yahay malab uu qaadan karaa oo ilmaha markii sanadka yar yihiin ayaa loo diidaa malabka cunuga markuu subaxii hurdada ka soo kaco waxa ugu horeeya siinaysa waxa wanaagsan inay qataa xabasoodada tan maxaa laha saliida ma ahan tan caadiga ah ina cunuga u garaacdid malabna ugu dirtid oo subaxii waxa ugu horeeya asiisid ugu dhigtid liana malabka iyo xabasoodada labadaba ilmaha jirooyinka ay ka ilaaliyaan difaaca jirkoodana way xoojiyaan talabaad waxa wanaagsan in ilmaha casiirka asiisid ama cabitaanadan waxa ugu haboon oo ilmaha difaaca jirkooda adkay karo waa faroolaha iyo gawaafaha iyo maxaa lahaa portugalka saddexdaas cabitaan ilmaha difaaca jirkooda ay xoojiyaan marka waxa wanaagsan saddexdaas cabitaan in ilmaha ugu dadaashid siiba xilliga qabowga kale ilmaha waxa ku badan jirooyinka xilliga qabowga marka la gaaro marka cabitaanadan saddexdaas cabitaan in ilmaha ugu roonatid oo maxaa lahaa maalin walba siisid ayaa haboon tan saddexaad waxa haboon in ilmaha maxaa lahaa yogurtka asiisid liana yogurtka ilmaha wax badan ay ka faa'iidaan tan saddexaad yogurtka ka dhigayna tan afraad ilmaha waxa haboon in maxaa lahaa cuntooyinka uu kala bedeshid maahan in maalintii oo maxaa lahaa hal cunto canjeero quraac ugu dhigtid bariis qado ugu dhigtid cashaan baasta ugu dhigtid taas cunug waxa gooniyo ka faa'iidaya malahan ilmaha waxa wanaagsan in carbohydrate-ka iyo proteinka iyo fitamiinada iyo khudaarta iyo faakihooyinka aad ugu dhameystirtid si cunugii mid kas wixii ugu baahan jirkiisa uu uga qaato hada borotiinada kale cunugaada hadii malaaygu san cun hilibka guduudna ugu bedeli kartaa haduusan hilibka jeclayn oo kale doorada ugu bedeli kartaa baara siin kartaa digirta noocyadeeda siin kartaa liana digirta dhirta oo waxa laga helaa oo maxaa lahaa oo dhirta laga helo ay borotiinka laga helo dhirta ayaa ku badan maxaa lahaa borotiinada midna xoolaha laga helaa midna waxa laga helaa dhirta digirta kale waxa ku badan dhirta maxaa lahaa borotiinada laga helo hadii carbohydrate-ka kale waxa sii kartaa oo kale maxaa lahaa cunugiga wixii uu jecel yahay oo kale khudaarta tuu jecel yahay siin kartaa waxa wanaagsan in ilmaha la isugu bedelo oo hal cunto gooni ah aan la siin hal shay gooni ah inta badan wuxuu keenaa dhiig la'aan muxuu ahaa lahaa oo ilmaha ugu keenay dadka waaweynba taas waxay ahayd tan afraad tan shanaad waxaan ka dhigaynaa in ilmaha sokorta laga fogeeyo iyo waxyaalaha macmacaanka ah iyo snackska ay magaalada ka soo gadahayaan sida buskudka jibsiga diyaarsan waxyaalaha muqarmashaadka la dhahayo dhammaan waxyaalahan diyaarsan ilmaha difaaca jirkooda ay hoos u dhigaan sokorta iyo macmacaanka ilmaha jirkooda ay difaaca jirkooda ay hoos u dhigaan inta sokor aan ka ilaalin kartid cunugaada iyo macmacaan ina ka ilaalisid sida fiican cunug ilkihiisana uma fiicno difaaca jirkiisana uma fiicno adigana kuma fiicna maxaa la xaga dhaqaalaha liana soo guditaankina waa lacag cunuga markuu jiradana lacag kale inay ku daawisid ayay kaaga baahan tahay taasna waxa waaye tan shanaad tan lixaad ilmaha difaaca jirkooda waxa adkay cunuga inuu helo hurdo ku filan waxaan loogu talagalay habeenkii inuu seexdo 8 ilaa 12 saacadood inuu cunug habeenkii hurdo hurdada maalinta uu hurdayo waxba muhiimad gooni ah uma lahan waxa wanaagsan tan habeenkii haddii tira maalinta uu hurdo habeenkii soo jeeda wax had isbedel gooni ah oo cunug uu iska bedelayo ma lahan liana hurdada habeenkii ayaa cunug u caafimaad badan maalinta seexda laakiin 2 saacadood 3 saacadood oo nasiinaha inuu seexdo waa laakiin habeenkii waxa loogu talagalay cunuga 8 saacadood ilaa 12 saacadood inuu ka hurdo cunug habeenkii hurdan difaaca jirkiisa xooga u ronaada tan toddobaad waxaan ka dhigaynaa cunuga inta sokor ah ka fogeyn kartid inay ka fogeyso liana sokorta difaaca jirkiisa ay hoos u dhigtaa tan xigtan waxaan leenahay ilmaha waa inay maxaa la siiyaa exercise ama riyaado ay ciyaaraan cunuga ma ahan inay ciyaarta ka celisid waalidka Soomaaliga wuxuu u baahan yahay banaanka wada cunuga soo ciyaar lahaa inuu yiraahdo waa laga soo dilaa gudihi guriga inuu ku ciyaaro loo diidayo leeyahay guriga iga halaya ma hagaajin kara hadirtana hagaajiye marka hawsha ay qabanaysid ha fiirinin liana ciyaarta cunuga maskaxdiisa dhistaa korinshihiisa caafimaadkana qayb ay ka tahay dhismihiisa maskaxeedna qayb ayay ka tahay marka ciyaarta ilmaha qayb weyn korinshooda xataa qayb ayay ka qaadataa oo maxaa la dhahaa xagga korinshaha cunuga laftiisa oo kale dhirkiisa oo kale qayb weyn ayay ka qaadataa ciyaarta oo cunuga uu ciyaarayo marka hadii gurigiina aad tiraahdo oo iga hadlaya banaanka aad tiraahdo cunuga ama laga soo dilaa marka waxa waaye ayadan dhibkeeda leedahay waxyaalaha difaaca jirka ilmaha kor u qaad ciyaarta ayaa kamid ah maskaxdoodana way dhistaa marka intaan ay ku soo gabagabeeyna muuqaalka waxaan rajaynayaa in aad u soo koobo soo dhawaada markii kugu horeeyay hadii subscribe noo saar gambalelkana furo si fiidiyoyada cusub aan soo dhigin ay ku soo gaaraan hadda hore noola joogtaan like iyo share si asxaabtaadana maxaa la u sii gaaran dad badan ay uga faa'iideystaan soo dhawaada